Assalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga ah ku soo dhawaada barnaamij kaloo xiiso leh. Waa maxay waxyaabaha lagaa rabo in aad suubiso si aad u noqoto maalin walba mid dhiirigashan, maalin walba ku nool nolol farxad leh? Ma ahan hal maalin isbuucii, ma ahan hal maalin bishii, laakiin waa maalin kasta oo ka mid ah isbuuca. Muuqaalkan waxaan idinkugu sheegi doonaa 3 waxyaalood oo haddii aad suubiso maalin walba aad ku noolaanayso nolol karaamo leh, nolol murugada ay ka dheer tahay, aadna dareemi doonto farxad iyo mustaqbal iftiimaya. Qodobka koowaad, jadwal u suubi waxyaabaha aad rabto in aad qabato maanta. Si aad u noqoto mar kasto mid noloshiisa isku aadisan tahay, waxaa lagaa rabaa marka hore in aad iska fogeyso ama aad iska ilaaliso wax walba oo geedi socodka noloshaada carqalad ku noqon karo. Sida in aad meelaha iska wareegto micno darro, in aad baraha bulshada iska dhex fadhido, Facebooka kor iyo hoos u jiido, in aad waqtigaada qaaliga ah ku lumiso hebel muxuu yiri ama heblaayo maxay tiri. Marka si aad uga gudubto caqabadahan aan soo sheegay, waa in aad la timaadaa qorshe cad iyo ficilo waxa aad rabto in aad qabato. Inta aadan seexanin ka hor, qorshayaal dejiso, meel ku qoro waxyaabaha aad rabto in aad qabato berrito, adigoo mudnaanta kala siinayo. Tusaale, saacad hebel oo kale waxaan rabaa in aan shaqadan qabto, waa in aan aadaa meel hebel, waqtigaas markii la gaaro, waa in aan iskuulka aadaa, kadib waa inaan shir ka qayb galaa, sidoo kale shaqada waa in aan soo gabagabeeyaa waqtigaas markii la gaaro. Waxaad awoodaa enerjigaada ama awooddaada meesha aad ku bixinayso in aad maamusho, laakiin awood uma lihid in aad xakamayso waqtiga, waayo waqtiga waa sidii safety oo kale, haddii aadan si fiican u maareynin wuu ku jarayaa. Maalintii waxaa jiro waqtiyo waxtar leh, ayna macquul tahay waxyaabo badan in ay ku hirgalaan. Marka isku day maalintaada in aad u suubisato jadwal iyo qorsho si aad uga faa'iidaysato waqtigaada, noloshaadana farxad iyo badqab nafeed aad dareento maalin walba. Qodobka labaad, isku dheelitir waxa aad qabanayso si aad u maamusho. Waxaad isku miisaantay ayaad maamuli kartaa. Dadka badanaa waxa ay isku dayaan in ay shaqooyin kala duwan hal mar wada qabtaan. Taas ayaa sababta in shaqooyin badan sidii laga rabay aan loo dhammaystirin. Micno ma suubinayso in aad subaxii 2 saac xafiiska aado, 11 aad soo xirto xafiiska. Waxaa muhiim ah saacada intee le'eg ayaad waxqabad la timaaday. Waa maxay waxyaabaha kuu hirgalay maanta in aad isweydiiso ayaa loo baahan yahay arrinkaas. Waa inaad ku xisaabtantaa waqtiga, meel ku qoro shaqooyinka aad soo qabatay iyo waxyaabaha kuu hirgalay. Isku dayna in shaqo walba waqtigeeda aad ku qabato, yacni shaqooyin kala duwan hal mar ha wada qabanin. Aniga ahaan oo hadda muuqaalkan idiin soo tabinayo, meel ayaan kusii qortaa barnaamijyada aan rabo in aan idiin soo tabiyo iyo waxyaabaha aan rabo in aan idinla wadaago. Isbuuc kasta waxaan dib u fiiriyaa waxa ii qabsoomay iyo sida wanaagsaneyd oo ay igu hirgaleen shaqooyinkii kala gedisnaa oon soo qabtay. Qodobka saddexaad, ku dadaal in aad cashar marxalad kasta. Ma jiraan wax la dhahayo guul iyo guul darro, laakiin waa in aad dadaal iyo juhdi ku bixisaa sidii aad wax uga baran lahayd gidgadoonka nolosha. Wax walboo dhacay cilmi ayaa ku jiro, cashiro ayaad ka baranaysaa. Dadka badanaa waxa ay fiiriyaan 2 dhinac oo keliya oo ah guusha iyo guuldarrada, laakiin anigu ma rabo in aad saas u fikirto. Waxa aan kaa rabo ayaa ah in aad isweydiiso, waxa aan qabtay ma sidii laga rabay ayaan u qabtay, mise dhiirigelin ayaan ka helay oo ah in aan isbeddelo suubiyo. Sidoo kale isweydii cashiro noocee ah ayaan ka bartay waxyaabaha aan maalin kasta qabanayo, halkii aad waqtigaada ku lumin lahayd nolosha khiyaaliga oo ah sidee maalkaas oo kale ku yeelan karaa, sideen sarahaas dheerdheer oo kale u dhistaa. Waxaas oo dhan way imaanayaan markii aad noloshaada ka saarto afkaaraha qaldan, sidoo kale aad la timaado ficil iyo waxqabad dhab ah. Ma ahan su'aalaha qaar in aad maskaxdaada ku mashquuliso, sida in aad isweydiiso aniga ma shaqaale wanaagsan baan ahay mise shaqaale xun, laakiin waa inaad la timaadaa dadaal dheeri ah iyo sidii aad waajibkaada ku gudan lahayd. Markaas ayaad helaysaa kalsooni iyo dhiirigelin buuxda. Sidoo kale waxaad kala kulmi doontaa meesha aad ka shaqayso ammaan, magac, sharaf iyo maamuus. Asxaabtayda qaaliga, maanta barnaamijka halkaas ayuu ku egyahay. Waxaan ka codsanayaa haddii aad ku cusub kanaalkan inaad subscribe saarto, haddii aad hore nala joogto comment, like, share. waad mahadsantihiin.